السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. meel kastoo ay joogtaan daawadayaal ku soo dhawaada daraasad cusub oo ay soo saartay Akademiyadda Nabadda iyo Horumarka Somaliland. Daraasadaasi oo ay ku jiraan qodobo xasaasi ah sida haddii ay dib u tartamaan madaxweyne Muuse Biixi Cabdi, Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro iyo Injineer Faysal Cali Waraabe ayaa guuleysanaya. haddii saddexda xisbi ee maanta jira ay ka qayb galaan doorashada ururada siyaasadda Somaliland sidee shacabku kala dooranaya. sidoo kale dadka su'aalaha la weydiiyay ee daraasadu ay soo saartay waxa kamid ah ka ay door bidayaan in ay soo horeyso doorashada madaxtooyada iyo tan ururada siyaasadda ee Somaliland. waxyaabaha kale ee daraasada ku jira waxa kamid ah waxa qabadkii 5 sano ee madaxweyne Muuse Biixi Cabdi xilka hayay iyo shacabku siday u arkaan ku qanacsanaanta iyo intaan ku qanacsanayn. sidoo kale waxyaabaha daraasada ku jira waxa kamid ah shacabka Somaliland inteebay aaminsan yihiin qadiyadda Somaliland oo daraasadan ay ka jawaabayso oo dib ay markale weydiisay. waxa iigu martiya oo daraasadana gudoomiye ka ahaa gudoomiyaha Akademiyadda Nabadda iyo Horumarka Somaliland Dr. Maxamed Faarax soo dhawow marka hore gudoomiye marka xigana bal waxaad faahfaahin guud naga siisaa daraasadan iyo waxyaabaha si guud uga hadlayso. هذا دراسات نوع دراسات نوعية كل عصبي هاي سوماليلاند. دراساتها أنت بدنا قسمية ويكل دوي لكن إذا كان في إنجليزي واحد يقول هذا public polling معناه دون وحوين وارهي أورورين بلارن والدلك أردن لجسمي دراساتها كلها لسميه وأنا جوان ده هروس سمين شرني إن كستود دراسات ده كانوا سمينا لبا شهر هروس سميناي لكن إذا تاني ووقتي waxay ku soo beegantay loo baahnaa xasaasiyo arimahan imika laga hadlaya taagan waxaan ujeedadan u sameynaa waxay ahayd inta badan aaraada iyo afkaarta kala duwan ee shacabka reer Soomaaliland loo maqlo waxa la maqlaa in yaro kooban oo TV-yada iyo meelaha idinku maaragtay ayaad odayaasha ka tihiin ka soo dhex muuqda oo aragtidooda dadka lagu khasbo oo loo haysto dadkuna inay aaminsan yihiin waxa hibil aaminsan yihiin ama hibil ay aaminsantahay anagoo taa ka duuleena ayaa waxaan doonay in bulsho badan oo ballaaran oo reer Somaliland aanu gaadhno marka oo waxa dhahdo populationka tirada dadka reer Somaliland 5 milyan baa lagu qiyaasay marka 5 milyan bade cirooliya caruurba guriga ugu tagaysa laakiin se marka nidaamkan sirfiyada ama polling loo sameeyo macnaheedu nidaamkan ra'yi ururinta marka la sameeyo waxa loo maraa hab gaar ah marka waxa la dhahdaa habkaas sample macnaheedu in kooban baad ka soo qaadanaysaa dadkii marka dadkii baad qaybinaysaa gobolada u qaybinaysaa degmooyin baad u qaybinaysaa gobol kastana waxaad ka soo qaadanaysaa intaasina waxay matalaysaa marka intaana waxa loo qaadanayaa si maaragtay aan ahayn hebel iyo heblayaad garanaysa si randomly macnaheedu si aan loogu talagelin oo aan xataa qofka dooran ka wax dooranaya iyo kala dooranaya baan ogeey ayaa loo xulayaa marka waa qaab loogu talagalay in loo ogaado ra'yida kala duwan ee dadka. daraasadan waa markii ugu horeysay iyadana ومركي وهو رئيسي أبي الدراسات اللي وصل مية قاعد كتلفونات أنت بدنا واحد سمين جرنا الدراسات دي كوري كوان قفك واحد لقب بحين شري وراقه أما السؤال واحد لقوا الدين شري قفك يكور تاجن وديني سمرك وجورجي سبكوا باقنا سا أما مهر الدي سي أما يسقوا وضم مريا كدنا وتكبوا حينس تن واحد نقصها من التلفونات وقاب عصرية وخرجها نفض تدكين اللي جوه ليو مية مجال بقى مقسم عيني وحنا رمتي أنا وجمع العلني هل كان oo arinta maaragtay xaga telefoonada helitaankooda dadka in telefoonada la helitaankooda shirkadda Telesom marka aad iyo aad baan runtii shirkadda iyo say nolol shaqeeyeen gudoomiyaha iyo maaragtay iyo shaqaalaha kalaba gudoomiyaha shirkadda Cabdikariin Maxamediid Allah ka raali ahaado iyo maaragtay Abdulwahab Max labadan nin runtii iyo shaqaalaha kale shirkadda Yaasiin iyo ay aad runtii arintan ugu shaqeeyeen marka shirkadana aad baan halkan waqtigan uga faa'iideysanaya sida ay u faahantay muhiimadda ay daraasadahaasi ay u leeyihiin dadka reer Somaliland iyo sida ay maaragtay nolol shaqeysay haddaba yaan waraysigan ka qaadnay waxaan ka qaadnay 6 gobol ee Somaliland marka shuruucda dalka la eegayo Somaliland waxay ka kooban tahay 6 gobol 6 gobol baan ka qaadnay waxaan waraysanay dad 3,300 qof 3,300 qof ayaan waraysanay وحويان وترى رنتي عاد ياد مرك اللي سامبلكا أما وحا قابكا ماركتي قابكا علمية سنة دراسة دوسة مني عاد ونكس
su'aalahan weydiinayna waa su'aalo imika taagan oo dadku waxaan u aragnay in arrintani muhiim dadka iyo shacabka iyo siyaasiyiinta iyo dadka kale reer Soomaaliland ku xidhanba ee ajaanibkaaba ay faa'iido u leedahay marka su'aalahan weydiinay su'aalaha fara badan bay ahaayeen laakiin waxaan ka soo koobaynaa daraasadda iyadoo waan sii deyn doonaa haddii la ilaa laakiin waan soo koobayaa si dadku maaragtay ay su'aalahan weydiinayna waxaa ka mid ahaa hadda dadku seebay dhowr iyo 30 sano kadib seebay Soomaaliland dadku arka waxaa jira aragtiyooyin dibadda Soomaaliland ka yimaado oranaya oo arrin yar oo kooban baa Soomaaliland aaminsano dadkan meesha ku haysato waxa akhriya moogto oo dadkeen shacabka dadkii shacabka habaan weydiinay seebay dadkan reer Soomaaliland wada Soomaaliland halkee laga taagay ma kor bay u kacday ma hoos bay u dhacday dadku waxyaabaha ka soo baxayna waxyaabaha cajiib runtii oo aad iyo aad marka exactly su'aasha sidee weydiinaysa su'aasha waxaan weydiinaynay qofka marka magaciisa iyo halku degan yahay iyo informationka macnaheedu warbixinta qofka ku saabsan oo dhanba la helaya si hadda tole daraasaddu waxay iftiiminaysaa dadka inta shaqaalaanta haysa inta shaqaysata inta dawladda u shaqaysa inta private sector-ka ama dadka ganacsatada u shaqaysa inta iskooda u shaqaysata inta caruurta le ay soo saaraysa daraasaddu guriyaha aynu waxyaabaha cajiibka daraasadda waxa ka soo baxay waxa kamid ahaa waxaan ogaanay in guriyaha dadka reer Soomaaliland macnaheedu guri kasta 10 qof ku nool yihiin average ay isku celceliska marka la eego 15 ilaa 10 qof baa guriga ku nool macnaheedu family-giiba wuxuu ka kooban yahay ka ugu yar wuxuu ka kooban yahay celcelis ahaan 10 qof waxa kamid ah dadka guurka soo maray qofku inta caruur leeyahay dadka isfuray furitaanku baad way aad bay ugu baday oo waxyaabaha daraasadda ka soo baxay ayaa kamid ahaa inta qof ay maaragtay ku oranaysa maaragtay shaqo la'aanta oo iyaduna runtii aad u sareysa ayaa kamid ah waxa kamid ah dadka wax bartay waxay daraasaddu soo saaraysaa inta secondary ka baxday inta aan waxba baran ee iskuul ba tagin oo inta aan waxba baran iskuul ba tagin aad runtii ay u badan tahay marka daraasaddu meelo badan ma aha arrimo siyaasadeed kaliya arrimii dhaqaalaha iyo arrimihii bulshada ay runtii iyaduna ay taabanaysa laakiin dadku inta badan waxay aad u jecel yihiin inay arrimaha siyaasadda aad uga hadlaan marka su'aasha ugu horeysan weydiin waxa kamid ahaa sid Soomaaliland waa aaminsan tahay Soomaaliland inay tahay qaran way tahay be waa xaqiiq rasmi oo jirta laakiin si fikir ahaan maadaama dal dimuqraadi aynu nahay si maxaad ka qabtaa in Soomaaliland la aqoonsado oo dal madax bannaan weeyaan be duniduna ay ugu dartaa aqoonsi ka dhinna boqolkiiba 95 arrintaa way soo dhaweeyay 100% boqolkiiba 95 waxay yiraahdeen anagu Soomaaliland baanu taageersan gobollo imika dadka reer Soomaaliland ay u filaan inaanay fikirka aaminsanayn ayaaba runtii aad arkaysa isbedelka weyn ku dhacay oo ah matalan oo kale gobolka Soomaaliya kale oo dadku ay u arkaan ay yiraahdaan Soomaaliland intooda badan maaha marka waxay ku tusaysaa xaqiiqdu iyo maluhu inay kala duwan waxay yiraahdaan facts iyo assumptions factsku ama xaqiiqda waxay xaqiiq assumptionskuna waxyaabaha iska malaawaashay oo adigu aad maartay naftaada ugu sheekaysay ma garanaysa marka wax badan oo dadkeena halkan joogo ku hargeysa joogay siyaasiyiinta sheegta ay naftooda ugu sheekayaan way maqaaxiyaha shaaka ku cabaan ya ayaa daraasada caynkan oo kale ay ka dhigaan waxba ka jirin oo ay soo saaraan xaqiiqda marka arrinta qodobka ugu horeeya taasaan weydiinay waxyaabaha kale ee aan dadka weydiinay waxa kamid ahaa dadka wax bartay iyo dadka waxba baran dadka aan waxba baran boqolkiiba 40 bay ka ahaayeen 30 bay ka ahaayeen 30 waxay ku tusaysaa in bulshadeenu dadka lagu qiyaaso dadka aan iskuulka gelin ama la yiraahdo illiterate-ka ay iskuulka gelin nidaamka iskuulka ha marin inay boqolkiiba 30 yihiin waa number aad u badan waa arrin u baahan runtii in wax laga qabto oo maaragtay dadka secondary-da ka baxay boqolkiiba 60 bay ahaayeen dadka jaamacadaha gaadhay boqolkiiba 20 bay ahaayeen taasi ku tusaysaa waxyaabaha kale cajiibka ah ee runtii ka soo baxay daraasadana waxa kamid ahaa dadka internetka isticmaala iyo dadka aan isticmaalin waxaan doonaynaa dadku xaqay xogta ka helaan inaan ogaano xogta xaqay ku soo martaa halkeed ka heshaa waqtiyadii hore wax jirtay waqti raadiyo cod laga heli jiray xogta ama BBC ama raadiyo hargeysa la dhageysan jiray waxa jirtay waqtiyada TV kooban ee cod laga heli jiray xogta laakiin maanta way ka duwantay internet intee baa la macnaheedu seebay dadku internetka u helaan boqolkiiba 8 iyo 6 daraasadeedu waxay iftiimisay in population-ka ama dadka reer Soomaaliland ay internet ay helaan boqolkiiba 9 aan internet helin boqolkiiba 9 kaasina waxay badan yihiin meelaha maaragtay miyiga ah maaragtay rural areas-ka ay badan yihiin
marka taas waxa weeyaan waa warbixintaasi informationka ama xogta guud ee maaragtay ka soo baxday dadka maaragtay intaan ku iftiimiyay laakiin se waxyaabihii kale ee muhiimka ahaa ee siyaasadda ku saabsanaa ayaanu iyagana runtii eegaynaa oo aad iyaguna muhiim u ah waxaan waxyaabaha aan doonayay inaan aad wax uga ogaano waxa kamid ahayd diiwaangelintii u dambeysay ee la sameeyay 2021 dadku intee leeg bay isdiiwaangelisay taana ujeedadan ka lahayn waxa weeyaan ma loo baahnaan doona diiwaangelin kale oo la sameeyay hadday doorasho dhacayso sanadkan oo kale ama sanadka dambe horaantiisa ay doorasho dhacayso bariga waxa isdiiwaangeliyay 7% ay isdiiwaangeliyay macnaheedu waxay ku tusaysaa in xaddiga tirada dadka isdiiwaangelisay aad u badanta ya ay ku tusaysaa 1% ismay diiwaangelin marka halkaasi wax badan baa ka soo baxaya dadkaan isdiiwaangelinna waxyaabaha aan isku diiwaangelin waxa kamid ah iyagoo goobta ay ka fogtahay runtii waxa jira area meelo badan oo maartay goobuhu diiwaangelintu ay ka fogtahay qofkii 20 kilomitir u jirto hab ku tagan aan jirin marka taasina cadeynaysa laakiin dadka isdiiwaangeliya runtii aad bay maartay isku diiwaangelin waxyaabaha dadkan weydiin waxa kamid ah maxay isku diiwaangelinaysa waa dad intaas oo dhan u socoto kiyuu gasho ya waqtigaaga iyo dhan soo hurto inaad cid u codayso aad isku diiwaangeliso kadibna cid u codayso waxay ku tusaysaa in wacyiga dadku ay kor u qaadantay waxa jira waxa la civil duties marka wacyiga dadku aad buu kor ugu kacay marka dadku waxay ku oranayaan waxyaabaha isku diiwaangelin waxa kamid ah waa arrin dastuuriya aan xaq u leeyahay inaan doorto laana doorto marka maadaama aan sharaxnayn oo cid aan dooranayo waa muhiim inaan doorto marka waxay ku tusaysaa dadka wacyigooda qaarna waxay ku oranayaanba anigu waxaan dooranayaa oo aan diiwaangelinta iyo codaynta buu sameeynaya qof reerkayga baa sharaxan marka waxay ku tusaysaa in nidaamka qabiiliga nidaamka dimuqraadiga ee qabiil reeraha ku salaysan inuu nagu xoogay macnaheedu nidaamkeena doorashooyinka iyo dimuqraadiyadu in saldhiga iyo salka ay ku fadhidaan uu yahay nidaam qabiili ah oo aan ahayn nidaam afkaar kala duwan iyo nidaam fikir kala duwan iyo nidaam waxqabad ku salaysan laakiin se uu yahay nidaam ku salaysan yaata reerkeeda ka soo jeeda ma garanaysaa ayuu yahay marka taasina de waa waxyaabaha xaqiiqda ah ee jirta su'aashii kale ku saabsaneed dadka Soomaaliland inta aaminsan in ururada la furo oo ururadu ay soo horeeyaan iyo inta aaminsan in doorashada madaxtooyada soo horeyso maxay ka soo baxayadana su'aasha waxaan laba su'aalood baan weydiinay dadka marka waxay ahayd kow ma taageersan tahay labada doorasho keeba jeceshay soo horeeya dadku arinta si fiican bay uga hadleen waxay yiraahdeen anagu waxaan jecelahay doorashada madaxtooyadu inay soo horeyso 100% ayaa yiri doorashada madaxtooyadu inay soo horeyso jecel 100% waxaan weydiinay su'aal lamida waxaan nidhi ma taageersan tahay mise waad ka soo horjeedaa furista ururada in ururadii la furade 4% dadkina waxay yiraahdeen furista ururadana waan taageersan marka dadku waxay doonayaan doorashada madaxtooyada dhacdo ururadina la furo labadiiba dadkii oo marka dadku waad arkaysaa in ay habka farsamo iyo habka loo kala horeysiinayo iyo waxaas waxa u taala hay'adaha dad ku shaqo leh ee qarankan way xil saartay arintaas laakiin dadku doorashada madaxtooyada way doonayaan in ururadii la furana oo 4% in ururadii la furana runtii way doonayaan waa laba arrin oo runtii isbarbar yaalo marka labadiiba inay dhacaan in doorashada madaxtooyada la galo ururadina la furo 100% madaxtooyada 100% ururadii marka labadiiba dadkii waxay ku oranayaan anagu labadaba diyaar baan u nahay macna labadiiba waan taageersan in la sameeyo marka isla dadkan u bad weydiinayseena labada doorasho tay door bidayaan inay soo horeeyaan iyo sidoo kale in ururadii la furayo in kala siiyaan qoraalkan hadda la arkay runtii waxyaabaha kale ee ku jira waxa kamid ah in dadka weydiiseen oo kale dadku xisbi ama urur ama siyaasi ma dagaalami karaan maxay kaga jawaabeen wallahi arimahaas waa arimo aad iyo aad wax asaasi ahayo anaguna aan jeclayn in ogaano moogto inta dadku ogaan baan doonay inuu sii ogaano maxaa dhici kara marka daraasadda waxaan sameynay July iyo August baan ka shaqeynay dadku marka su'aashan weydiinay 4% waxay yiraahdeen anagu mabda xisbi iyo mabda urur iyo mabda shakhsiyadeed midnaba uma ogolin in wax nabadgeliyada iyo wada jirka umada dhaawacaya inaan sameeyno 100% 4% baa ka soo horjeestay inay nidaam
maaragtay abuuraya nabadgelyo darro inay fikirkooda ay ku meel mariyaan xisbina ay ku raacaan marka 4% arrintaas way diideen halka 9% ay ogolaadeen way yiraahdeen anagu waan u dagaalami lahayn oo maaragtay waan u mudaharaadi lahayn waan u dagaalami lahayn ma garanaysa ay yiraahdeen marka 9% waxay yiraahdeen waan u mudaharaadi lahayn waan u dagaalami lahayn 4% waxay yiraahdeen waan u dagaalamayn waan u mudaharaadnay halka qodob ka soo baxay marka siyaasiyiinteenu inta badan bulshada ay hogaaminayaan ma fahansana waxyaabahan ogaaday kamid in badan baan bulshada ku dhex jiray bulshadu waxa weeyaan way baahiyo badanta mid aan quraacdi haysan mid kuuliya subaxii kala haya mid arila mid ari meel ku raacaya mid taajira nolosha noocyaheeda kala duwan aad bay badanta dadkeenu dabaqada ma leh waa in yar waan ku qiyaasay ilaa 100 qof oo ma garanaysa dabaqada ugu sareysa oo ganacsatada ah iyaguna wax badan dadkaan dhaamin xun soo dejiyo waxa ay soo dejiyaan wax dul saarta dadkan masaakiinta waxba haysan xukun ka siibiya iyaguna wax badan faa'iido iyo inta kale iyo in yaro shaqaysa oo waxay qaataan aan ku filnay iyo inta kale oo ah dadka la dir nolol waxaan ugu yeedno nolol maalmeed la dir macnaheedu nin ama gabadh la diriraya wixii maanta uu cuni lahaa dadkaasi iyo ninka siyaasiga ah ee kursiga doonaya ama kursiga ku fadhiya aad bay u kala fogi macnaheedu waxa u dhaxeeya gidaar weyn oo dhaxeeya oo aad u xajmi weyn dunida ku kala nooyina aad bay ninkan wuxuu ku jiraa duni AC ku baxayo noloshiisu ay soo saaran tahay wuxuu ka sheekeynaya mashaariic iyo wax la kala jarayo iyo ma garanaysaa wax la dhisayo iyo dhul la iibsanayo gabadhan ama ninkan wuxuu ka sheekeynaya hooyada halka fadhidaana yaabaha iyo inankana waxay ka sheekeynayaan shaqo la'aanta iyo busaaradda iyo ma garanaysaa caafimaadka oo dalkan ognahay xaaladiisu ay tahay mushkilaadka dadkeena ku xeeran baa iyagana ay arkayaan marka hada darbi weyn baa u dhaxeeya nidaamkii dadka lagu wacyigelin jiray ee la oran jiray reer hebel baanu nahay oo reer hebel hadaynu nahayna saanu sameyn ama igu taageera oo kii dawladda hayna oran ilaha oranay reer hebel baan reer hebel igu taageera kii mucaaradkana oo ahaa reer hebel baan reer hebel igu taageerana aad buu yaraatay oo dadku waxay u arkayaan in mucaarad iyo muxaafidba inaan problem mushkilaad ka faraha badan ay haysta inaan siyaasiyiintu ay la imanayeen ama wax qabadka ay la imanayeen kii hore u joogay because imka siyaasiyiinta mucaaradku ay noogu cusbo maaragtay waxyaal bay soo qabteen oo mas'uuliyiin dawladeed bay ahaayeen oo qaran kuwa imka joogana dadku way arkayaan hadda ma fahantay marka baahiyaha dadkan haysta siyaasadii dalka taalay kama jawaabayso mar haddii ay taasi ka jawaabayn dadku waxay u arkayaan marka inay qof kasta uu walaal briskiga iska raadsanay marka boqolkiiba waxyaabaha markan qiyaasanayn way dadku ay yiraahdeen boqolkiiba 4% anagu xisbi ma dagaalameen waxa kamid waxyaabahaas deer weyn baa ku xukka kala dhaxidhan dadka maaragtay siyaasiyiinta ah iyo maaragtay dadka shacabka deer weyn baa ku kala dhaxidhan oo dhinaca fahamka ah iyo dhinaca fahamka ah oo kuwana ay kuwa fahmayaan waliba cid la fahmaa waa bulshada la fahmaa siyaasigu waa inuu bulshada dareenkeeda fahmaa oo maaragtay oo bulshadii ciddii maaragtay ku dhex noolaayo wax ka doonaya waayaga garanaysa ma aha in bulshadu siyaasiga fahanto hogaaminta looga baahan yahay fahanto maaragtay dadka fahanto marka boqolkiiba 4% saasay u yiraahdeen runtii anagu cid gaaran oo ma dagaalamayno waxyaabaha kale ee daraasadda ku qoran ee aan arkay waxa kamid ah in aad weydiiseen shacabka madaxweyne Muuse Biixi Cabdi Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro injineer Faysal Cali Waraabe haddii ay imika mar kala tartamaan cidda sida u kala badanayaan codadka u kala helayaan iyo sidoo kale su'aal kale oo ay diir weydiisano ku saabsan waxqabadka madaxweynaha ee 5 sano ee xilka hayay bal labada su'aalood iyo qaabkii uga jawaabeena waa su'aalo runtii aad iyo aad
dadka inta badan ay ku kala qaybsan yihiin sidaa markaa dadku ay ku kala qaybsan yihiin daraasaddu inay soo dhigayso ta hore 2017 saddexdan way tartameen madaxweynaha iyo musharax cabdiraxmaan ciro iyo gudoomiyaha Faysal Carraabe saddexdooda 2017 madaxweyne Muuse wuxuu helay 50% codadkii la tiriyay yaan saxay cabdiraxmaan wuxuu helay 40%. Faysalna wuxuu helay 4%. 5 sano kadib dadkii waxaan weydiinay haddii imika doorasho gala oo kaba soo qaad doorashada la isku haysta maanta ya haddii imika ay dhacdo oo imika ay galaan seebay loo kala helaya ay dadka weydiin runtii waxaa noo soo baxay waxyaabo adiga iyo aniga iyo intayna daawanaysaba aan filay boqolkiiba 12 waxay taageereen madaxweynaha imka hadda talada haya madaxweyne Muuse Bixi boqolkiiba 12.9 na waxay taageereen musharax cabdiraxmaan ciro boqolkiiba 3.7 na waxay taageereen Faysal Carraabe marka waxay ku tusaysaa in cabdiraxmaan iyo Muuse madaxweyne Muuse iyo musharax cabdiraxmaan ay neck to neck boqolkiiba 32 bay labadooduba runtii haystaan waana def wixii populationka runtii naga soo noqday laakiin se tamhiimkii ma hata tamhiimkii waxa weeyaan boqolkiiba 31 dadka populationka macnaheedu dadka reer Soomaaliland boqolkiiba 31 waxay yiraahdeen midkoodna ma codeeyaan taas muhiim marka too baahan in la fahmo waa taa weey boqolkiiba 31 waxay yiraahdeen midkoodna ma codeeyaan يعني صدح بكم قناعة صدح منكم قناعة هذا بلو فرصة يمكن إنك هذا شيء كأنه جدار كوين بالشدة يهجانك كل حرة السياسيين تين كل حرة معناه إن السياسة دين يا ركتة السياسة دين يا ركتة حسبية دين كل شيء إن أنا كتجواب باهيها بالشدة هايستا إن أنا كتجوابي عدنتي مثلا باكم بقول كوبي صدق وإحنا متكونوا معضلين متكونوا قناعة وأنا فهمتي عرفتي ده تدخل حاجة ولا هي لكن عرفتي واحد بيكتوصيصة waxay ku tusaysaa waynu ka baranaynaa in qaab dhismeedka siyaasadeed ee asxaabteena ay u sameysantay iyo nidaamkeena doorashadu in aanu ka turjumayn baahiyaha dhaqaale iyo nololeed ee dadkeenu ay qabaan anu taasan population dadka kale reer Soomaaliland waa laga yaabaa inay si kale iyaguna ay u dhigaan laakiin anu taa soo baxday taasay runtii oo inaanay hooyada suuqa wax ku iibinaysa yaabaha sariiba dilaalka ah ee seelada ku kala haya iyo hooyada miyiga joogta ee sanad kasta abaartu ay ku dhacayso iyo ma garanaysay iyo nolosha kale ee dhaqaalaha xumid ee boqolkiiba dhowr iyo 50 ay maaragtay daraasadu ay soo saartay in shaqo la'aan dhalinyartu yihiin sanad kasta intaas jaamacadaha ka baxda markay ka baxaana ay shahaadada qaataana shaqo la'aan baa ku dhacda oo maaragtay halkaas uga bilaabantaa shaqo la'aanta iyo mushkilaadku uga bilaabma marka nidaamkeena asxaab iyo siyaasadeed kama jawaabo baahida bulshada boqolkiiba 31 midkoodna dooni ma nabada waxaan weydiinay 5 sano ee madaxweyne Muuse Bixi xilka hayay dadku say warka wax qabadkiisa say ugu qanacsan dunida reer galbeedka waxa la yiraahdaa approval rate madaxweyne markuu 2 sano 3 sano xilka hayay dadka la weydiiyay lagu dhaahdaa madaxweyne aad doorataad u codeysay si aad ugu qanacsantay waxa ka soo baxday boqolkiiba 9 waxay yiraahdeen waan ku qanacsanahay madaxweynuhu wuxuu qabtay 5 sano ee xukunka hayay boqolkiiba 29 waxay yiraahdeen dhexdhexaad baan ka nahay macnaheedu 50-50 wixii aanu ka doonaynay ku qanacsanaanteedu waa boqolkiiba 50 marka neutral baan dhahnaa waa dhexdhexaad hadda labada isku darto inta dhexdhexaadka iyo inta aadka ugu qanacsan intaas waa inta aadka ugu qanacsan boqolkiiba 49 aad bay ugu qanacsan boqolkiiba 9 waa dhexdhexaad hadda labada isku darto oo dhexdhexaadka raacaysa inta aadka ugu qanacsan leh oo boqolkiiba 7 haddii aad kala deysad 9 kan dhexdhexaadka ugu deyso approval rate-ka inta aadka u taageersan aad u deyso boqolkiiba 9 oo boqolkiiba markaa waxay noqonaysaa 9 marka boqolkiiba 9 na waa waxa weeyaan waa inta aadka ugu qanacsan boqolkiiba 9 waa inta dhexdhexaadka ee aan diidanay ee leh madaxweynuhu shaqo waxna way u dhimay shaqana uu qabtay waxna way u dhimay waa inta leh
inta le kuma qanacsanin wax qabadkiisii anagu kumaanu qancinna waxay noqotay boqolkiiba 15 boqolkiiba 15 waxay yiraahdeen anagu 100% kuma qanacsanin wixii uu qabtay marka dadkeena daawanaya way la yaabayaan qaar ba laga yaabaa inay yiraahdaan inteen leeg bay ku suurta gashay in madaxweynuhu macnaheedu cadadka inta leeg numberka inta leeg in boqolkiiba 49 aad ugu qancaan boqolkiiba 50 ay dhexdhexaad boqolkiiba 20 ay dhexdhexaad noqdaan boqolkiiba 15 ay ku qanacsanaan waayeen waxyaabaha markan dadka weydiinay su'aalahaas aan ku doonay inaan ogaano dadku say maxay dareenka maxay u qaateen waxa kamid ahayd in dadku yiraahdeen in nidaamka dawladeed ee madaxweynuhu gacanta ku hayo inuu yahay inuu amarku iyo taladu iyo go'aanku uu meel kaliya ka soo fulayo marka dadku ay maaragtay awoodiina ay qaybsaneen ee awoodii ay isagoo kaliya gacanta ku hayo waxa kamid ah in dad loo arkayay in nidaamka dawladnimada dulsaar ku yihiin oo ay ku dulnoo yihiin in dibadda loo tuuray oo laga saaray oo ay kamid yihiin anu ma yiraahdo madax dhaqameed nimanka siyaasiyiinta waa siyaasiyiin ma aha madax dhaqameed waa siyaasiyiin bila amal noqdo marka kuwaas in dibadda maaragtay systemkii looga saaray in waxyaabaha kale waxa kamid ah si dadku ugu taageersan barnaamijkii uu sameeyay shaqo qaran loo oran jiray oo dhalinyartu runtii ay u sanadeen nidaamkii qabiiliga ah ee eexdii iyo wixii la yareeyo laga saaray iyo in mashaariicda dawladdu ay bixiso lama oran karayo de 100% si la doonayay laakiin se in loo sameeyay nidaam ay marto oo qof kasta oo reer Soomaaliland uu runtii uu maartay heli karayo wixii uu ka doonto marka in cadadkii ama waxaan oran jirnay musuqmaasuqi hoos maartay u yar dhacay qaabkii berigii hore dawladihii horena ay u sameyn jireen ee ahayd in inta dadka talada gacanta ku haysa haday noqoto siyaasi hore haday noqoto kaaba qabiil haday noqoto ma garanaysa in gacanta inta lagu hayo lacag la siiyo si dadka looga aamusiyo intaas inay maartay in inta meesha laga saaro marka aragtidiisa uu la yimid ee siyaasadii hogaamineed dad badan oo runtii ku raacsan baa runtii aan soo aragnay jira dad badan oo ka soo horjeedana oo koranaya ma jiraan kuma raacsanina wax qabad badan oo u ballan qaaday madaxweynuhu yiri waxa rabaan qabanaynaana oo deegaano oo barnaamijkii markii xisbiga la wadina oo aan la qabanna way jiraan taasina kulli dawladda u taalay inay sharaxdo waxay u qaban waayeen laakiin se boqolkiiba 49 way ku qanacsan boqolkiiba 29 waa dhexdhexaad oo maaragtay boqolkiiba 15 kuma qanacsan qodobada kale aad leedahay waa xasaasi ama waa loo baahan yahay ama waa muhiim ee ku jira aad ku dari kartaa maxay waxaan weydiinay dadka muddo kordhinta iyo doorashada qaabka doorashada golaha guurta loo galay muddo kordhinta waxaan weydiinay dadka ka warrama seebaad u aragtaan haddii madaxweynuhu haddii doorashada madaxtooyada ay dhici weydo 13 November in madaxweynuhu muddo kordhis qaato boqolkiiba 40 muddo kordhinta way taageereen waxay dhaawaan ogolay boqolkiiba 40 way ka soo horjeestay marka taas way ku tusaysaa in dadku aad ugu kala qaybsan yihiin kala qaybsanaantu in aad boqolkiiba 40 waxay dhahaan waa sax ha loo sameeyo boqolkiiba 40 runtii way ka soo horjeesteen inta kale weydiina waxa kamid ahayd haddii saddexda xisbi ee imika jira ay la tartamaan ururada diiwaan galiyay kaba soo qaad doorashadii baa la galay ama madaxtooyaha soo horeyso ama ha dambayso ama imika ha dhacdo taasi waxa naga noqosaya ma hay'adda dastuuriga u tahay laakiin waxa ka soo qaada doorashadii ururada ayaa la galay saddexda xisbi hore u jiray iyo ururadii baa tartamay seebay dadku ugu kala codeynayaan saddexda xisbi ee jiray ayaan iyadan dadka weydiin runtii boqolkiiba 28 dadku waxay yiraahdeen waxaan u codeyn doonaa xisbiga wadani boqolkiiba 25 waxay yiraahdeen kulmiye marka waxay ku tusaysaa in xisbiga wadani uu maaragtay uu hoggaanka hayo macnaheedu in soo bixitaanka xisbiga wadani uu ku soo baxayo hadduu doorashada way jiraan arrimo siyaasadeed oo kale way jiraan oo xagga gudoomiyaha xisbiga iyo musharaxa xisbiga iyo ma garanaysaa ay hadhow tole sida arrintaas siyaasiyiin loo fasirayo oo dadka ka soo kala jeedaan labada hogaamiye labada mudane ay maaragtay u fasiranayaan iyo dadka kale la loolamaya sidii hadhow tole ay bulshada u gaarsiinayaan iyadoo taa ku xidhan tahay haddana boqolkiiba 60 dadku waxay yiraahdeen xisbiga wadani dib baanu dooranaa boqolkiiba 50 kulmiye ayaan dib dooranayna xisbiyada maadaama waqtiga ay ururada imaan weydiin wuxuu boqolkiiba
3.7 ayaa iyagana yidhi runtii waanu maaragtay waanu dib waanu dooranaynaa marka waxay ku tusaysaa in chanceska ay haystaan ama fursadaha ay haystaan wadan iyo kulmiye inay soo noqdaan inuu aad runtii u sareeyo waxa kale aanu weydiinay oo aan ku soo khatimayaa golaha guurtida waa golaha kaliya ee laga soo bilaabo 39kii ilaa 97kii baa la sameeyey 97kiina xildhibaano kale lagu daray oo dib baa loo habeeyey ilaa laga soo bilaabo 97kii ilaa maanta golahaasi lamana soo xulan doorashana muu gelin waana gole muhiim qarankan wax badan dadka qaar baa dhalila laakiin si qarankan iyo dalkan badbaadintiisa dib u dhiskiisa hanaqaadkiisa siyaasadeed iyo dimuqraadiyad golahaas wuxuu ka soo ciyaaray door aad weyn waqti adagna dalkan kala soo dabaashay miyaa loo baahay mise looma baahna ma awoodooda la dhimo mise lama dhimo xeerka doorashada miyaa toos loo doortaa mise waa la soo xula waa su'aalo aanan halkan kaga jawaabayn oo u taala nidaamka dalkeenu uu leeyahay xeer dejinta iyo baarlamaanka iyo u taala golayaasha qaranka laakiin dadka waxaan weydiinay golaha guurtida ma waxaad jeceshiin in la soo xulo oo nidaamkii reerada qabiiliga ahaa lagu soo xulo sidii 1997 loo soo xulay mise waxaad jeceshiin toos loo doorto dadku waxay yidhahdeen waxaan jecelnahay toos loo doorto boqolkiiba 66 baa yidhi waxaan jecelnahay in golaha guurtida toos loo doorto haddii la soo xulo oo golaha guurtida la soo xulo inkastaanay ahayn inaan kasii hordhaco oo arrintan faaleeyo haddii la soo xulana ujeedooyin siyaasadeed oo gaaraba la eegi karaya haddii toos loo doortana maartay faa'iidada khasaar haddii la doortana faa'iidada khasaar wala haddii la soo xulana faa'iidada khasaar wala laakiin se qodobada muhiimka ah tahay in la eego waxa weeye halkeebay Soomaaliland u socotaa tahayna golaha guurtidu seebay halkee Soomaaliland u socotaa golaha guurtiduna xaaladaha uu dalka la soo dabaashay maanta halkee Soomaaliland taagantay halkeebuu uga qaadi karaa dad caynkee u baahan madax dhaqameedkii weli u baahannahay oo weli mushkilaadkii reeraha ay isdilayay iyo nabadeyntii ayaa weli taagan oo ay tahay inay maartay ka qayb qaataan oo sii wada runtii door weyn ay ka qayb ilaa imka ay ka qayb qaataan mise dib u dhiskii iyo dawladnimadii baa loo galay oo waxaan u yeedhanaa marka la doortaa dad dib u dhiska dalka iyo dawladnimada aad u yaqaana marka taas waa dood waqtigeeda iyo markeeda kale laakiin se dadku waxay iyaguna aad u taageereen arrintaas دكتور محمد فارح فلقين انت كبدنا ونكسي سمين دونا دراسة iyo daraasadaha kale aad soo saartaan balse ugu dambeyn waxaan ku weydiin lahaa dad badan oo aqoon-yahanaa iyo dad kala duwan baa daawanaya daraasadan isku halaynta daraasadin sideed uga jawaabaysaa waa su'aashaasi aad weydiin jirteen kuwa siyaasiyiinta ah ya kowdi casaro marka daraasaduhu danu inta daraasadahan anu waxaan ka shaqeynayay muddo badan waxaan ka shaqeynayay PhD na haysta shahaadada ugu sareysa ee qof qaato ayaan ku sitaa cilmi baaristii daraasadaha akaademiyaduna waxay caan ku tahay oo 20kii sano dambeysay ka soo shaqeynaysa waa meesha kaliya ee maanta aad ka helayso in ka badan 100 daraasadood oo Soomaaliland laga sameeyay waa meesha kaliya marka arrimahaas caan bay ku tahay waxna waxay martaa marka daraasadaha sameeysana waxay martaa hab ardayda ay la garanaysaa ardayda jaamacadaha markay buugooda qorayaan xog ururin baa la sameeyaa hab baa la maraa methodology baa la yiraahdaa waxa hadii cidii u baahan kaas waan ka bixin karaa methodology baa la yiraahdaa hab raaca daraasada marka iyadoo qoran baan haynaa oo maaragtay habkii aan raacnay iyo wadiiqadii aan marnay maadaama kelmadaha Soomaaliga waxaan isticmaalay si dadku ila fahmaan numberskii ama numberadii ama aanu qaadanay iyo sidaan u qaadanay iyo sida loo xulay gobolada numberska saa loo maartay loogu kasaleeyay marka qaab dhan bay maraysaa hab dhan bay martay cidii u baahan ee su'aal ka qabta waa soo bandhigaynaa iyadoo qoran baan haynaa waanu sii deeynaa Facebook-gayga iyo Twitter-kayga ayaanu gelinaynaa waa la akhrisanayaa cidii si cilmiyana ya u maartay u critique waxa la yiraahdaa si cilmiyana u dhaliilaysa ma ahanin meel maqaaxishaha ku cabayade oo oranaya araxo kama jiraan waxa shaqada dunida waxa kama shaqeeya si cilmiyana waxaan isticmaalay mathematical calculation xisaabta ma khaldantay moogto siyaasaddu waa waxa la yiraahdaa siyaasaddu waa art of possibility waxa weeyaan waa fashaxnimada wax kasta suurtagal marka ayaa siyaasadda lagu qeexaa laakiin se xisaabtu 2+2 miya 3 noqonaysa 2+2 waa 4 soma
marka ma bedeli kartid kama dhigi kartid 6 5 na kama dhigi kartid marka gibigeedu waxay ku saabsan daraasadeedu xisaabtaas oo cilmiga maaragtay statistics-ka dadku say u yaqaanaan la raacay marka cidii maaragtay arinta markaan soo bandhigno critique critique way intii garanaysa way la fahmaysaa ku sameyn karaysa xirfadda ayaa ugu daalay waa madax banaanayna waan soo dhaweynaynaa laakiin se waa hab xisaab la raacay hab aanu khadal gali karin ya aanu khalad ku iman karin dad aqoon-yahanna fara badan baa ka qayb qaatay maaragtay khibrad gudaha iyo khibrad dibadda ah waanu la kaashanay waa 20 sano aanu sameeynay aqoonteeda aniga gudoomiyaha akademiyadii baa ayaan u leeyahay intaas oo jeera markaas ma leeyahay cid baa question garan karta inta badan dadkeenu de siyaasadaha hebel yiriin bay ka daba hadlaan laakiin se tani ma aha tii laga daba hadli lahaa ma noqon kartaba uma talagelin ba in laga daba hadlo because waxaan soo marnay wadada dheer oo cilmiyeysan aad iyo aad baad mahadsantahay Dr. Maxamed Faarax gudoomiyaha akademiyada nabadda iyo horumarka Somaliland waanaan runtii aad iyo aad kaaga mahad celinaynaa in aad daraasadaasi nala wadaagtay aad iyo aad baad mahadsantahay aad baad mahadsantahay Allah ka shar